waxay xidigaha geesku ugu jawaabeen inanta Filis Cabdi oo dhawaan soo saartay hees ay ku aflagaadeynayso dowladda Soomaaliya ka talisa haatan. Maxaase ku kalifay in xidigaha geesku u jawaabaan Filis Cabdi? yaa sameeyay heestaas? yaase la xameeyay? oo warbixintan halka aan uga keenay isla markaan aanu idinku bayaamin doono cidda samaystay heestaas isla markaana la xameysay ee qaaday iyo sababta loo qaaday iyo xagga ay ku socoto heestan oo meelo badan loo kaxeeyay isla markaana aan la ogeyn halka ay ku socoto, balse aan la ogeyn inay Filis Cabdi ku socoto. ayaan haddaba idin bayaamin doonaa sababta iyo sida ay ugu socoto, inkastoo ay ka duwanaan karto oo ay meelo badan ku socoto. haddaba heestan haatan Filis Cabdi aan ku socodsiinay annagoo isla markaana aan u qaadanay mid Filis Cabdi ku socoto, inkastoo aan idin bayaamin doono meelo badan ay ku socoto. haddana heestan waxaan ku aqoonsanay inay Filis Cabdi ku socoto qaybtan yar ee go'an. bal nala dhageyso. suugaan lagu cadgoostiyo halkaas waxaa cadaynaysaa in Filis Cabdi heestan loola jeedo isla markaana ay Filis Cabdi ku socoto, maadaama ay xidigaha geesku fanaanin yihiin isla markaana ay u dhaxeeyaan ummadda Soomaaliyeed gidigood. inkastoo heestani ay u gaar tahay Somaliland oo nin reer Somaliland oo la yiraahdo Axmed Saleebaan Bidde uu sameeyay, haddana Soomaalida way ka dhaxaysaa oo Axmed Saleebaan Bidde waan Soomaaliyeed isla markaana sameeyay heeso badan iyo riwaayado badan oo lagu intifaacay xilligii dowladii kacaanka iyo weliba dowladii ka horreeyay, maadaama ay horumar badan gaadhay Soomaalidu intii uu kacaanku hayay. inkastoo uu dib u burburiyay isla markaana uu dhib badan u geystay Soomaalida dhexdeeda. haddaba Filis Cabdi ayay heestani jawaab u tahay marka xagga laga eego. haddaba dhinac kale haddaan ka eegno, heestani jawaab waxay u tahay dhinacyo badan. dhinac kale baan ka eegi doonaa, bal fiidiyowgana ila daawada. isku soo celceliyo asaluugin calafkiyo wuxuu caadilkeeno cidda maalka haysiyo yaanu cuudku ku talin nincimada mabasli yaanu ciidanka dhigan. waxaan aragnaa halkaasna in loola jeedo wariyayaal Turkiga iyo meelo badan tagay oo Somaliland aad u mucaaradaya isla markaana markii hore Somaliland ku noolaa balse ka haajiray, maadaama ay dadka reer Somaliland sheegaan inay lacag ka heleen ama gunno ka heleen dowladda federaalka Soomaaliya ee uu ka taliyo madaxweynaha Nowye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo lacag badan ku bixiyay burburinta Somaliland iyo iska horkeenka beelaha Somaliland. waa sida ay dad fara badani hadalka u dhigaan. haddaba wariyayaasha aan inta badan commentiga heestan ku arkay ay dadku sheegayaan waxaa aad uga mid ah wariyaha Cabdirasaaq Teera oo Somaliland ku noolaan jiray isla markaana reer Somaliland ahaa, iyo weliba Maxamed Bakayle oo imika Turkiga ku nool. labaduba Turkiga ayay ku nool yihiin haatan aynu hadlayno.